Waxa uu ahaa kulan muhiim u ahaa waalidiinta ku nool Hamburg iyo sida ay uga faa'iideysan karaan barbaaridda ubadka Soomaaliyeed ee ku dhashay Yurub. Ahmiyadda kulanka waxa uu ahaa xoojinta afka iyo taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana marti ku ahayd barbaariso Nimco Nuur oo ka timid dalka Finland. Gudoomiyaha hay'adda Ani Charity Foundation Axmed Nuur Ibraahim ayaa ugu horeyn kelmad kooban ka jeediyey kulanka, waxaana uu faahfaahiyey kulanka iyo muhiimadda uu lahaa. ummad aan dhaqan lahayn ummad ma noqoto, ummad aan diin lahayn ummad ma noqoto. Marka waxaan ku dardaarmaynaa anigoo magaca hay'adda Ani Charity ku hadlaya, waalidiintu inay culays saaraan in caruurtooda afka Soomaaliga number 1 loogu dadaalo. Sidoo kalena maaragtay iskuulada marka ay ku maqan yihiin iskuulada ay jiraan, laakiin guriga marka la joogo inaan maaragtay aanan af Jarmal lagula hadlin oo af Soomaali lagula hadlo si caruurtu ay afka u bartaan oo ay u ilaashadaan. Taas waa taas. Tan kala xigta mar walba waxaa mas'uuliyad ka saaran ummadda Soomaaliyeed dalka Jarmalka degan inay caruuraha isu keenaan, caruurtu ay istaqaano, wada socoto, ay isku xirnaadaan. Marka ay soo koraan xogaho oo kuraya ama qaangaarka ay ku soo dhawaadaan inay contact kala haystaan, dad xiriir ay ahaadaan. Markay weynaadaanna in sidaas oo kale ay iska warqabaan. Barbaarisa Nimco Nuur ayaa soo bandhigtay casharo wax ku ool ah oo anfici kara mustaqbalka caruurta iyo in lagu barbaariyo afkooda iyo dhaqankooda Soomaaliyeed. Inaan helno ilmo Soomaaliyeed oo hal wax oo isla yaqaanaan hadday jirto caalamka, waxay leeyihiin hal identity oo isku mid ah. Maanta Soomaali dhibaatada haysato waxa waaye Jarmal inta joogto manhajka Jarmalka ay bartaan, Finland inta joogto manhajka Finland ay bartaan. Lagama yaabo 20 jirka Finland joogo ilaa 10 jirka Jarmal joogo inta ku wada dhashay inay identity ay isla dareemayaan oo Soomaalinimo ay ka dhaxayso. Sababta aan marka buugaagtaan aan waqtigayga iyo maalkayga iyo maskaxdayda ku geliyo waxay tahay inaan soo saarno ilmo Soomaaliyeed oo hal identity leh. Qaar ka mid ah waalidiinta ka qayb gashay kulanka ayaa ka hadlay dareenkooda. Saan ognahay maanta waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo markii saan af Soomaali ku weydiisho ku dhahayo ku fahmin habar yar oo luqadii wadanka uu joogo uu ku dhahayo. Taasna waxaa sabab waxa waaye waalidka aanan iska taxalluujinin ama maaragtay aan xoog saarin inay ilmahooda afka iyo dhaqanka iyo wixii soo jireenka ay Soomaalida lahayd aysan barin. waxaan leeyahay horta waa guul usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo dhallaanka Soomaaliyeed oo ku dhashay meeshan. Inkastoo anigu aan ku cusbahay wadanka masana waxa weeye kama warli'i. Marka saas aawadeed waxaan leeyahay macallimadeena hadda aniga ugu horeysay horta waxyaalo badan oo na taabanaya haddaan nahay Soomaali ayay ka hadashay. Marka waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliya oo meeshan joogto oo waalid ah, marka ugu horeyso horta waxaan leeyahay buug iyo qalin haysta saartaan dhihin lahaa si looga faa'iideysto macallimadda warkeeda. hadal badan ma naqaano laakiin waxaan hadal ma garanayn laakiin waxaan ku dhahay waa meesha dad waaweyn oo meesha niman baa iyo dhaqanka iyo sida ubadka wadanka ugu noolaan lahay waxay la tahay in yacni ay aad ugu mahadsan tahay. weli maana arag inkastoo anigu cusbahay oo dadka ugu dambeeya wadanka ay nahay familo badan aan ku nimid. waxaan ku dhahay dhaqanka iyo caruurta iyo hiddii dhaqanka si aynan u lumin haddii wadankan weyn aan ku dhex lumno kulli waxay la tahay waxaan ku dhahay inay culus arrin adag tahay.